Larry wuxuu bedelayay nal isagoo isu diyaarinaya booqashada walaalkiis. Xaaskiisa Jeril waxay ka walwalsan tahay in Larry uu khiyaaneeyo oo uu la socdo haweeney ka yar sida walaalkiis oo kale. Larry ayaa hadda u dhaartay jacaylkiisa isla markaasna shandaliirkii ayaa koronto ku dhuftay. Kadib Jeril waxay taleefanka Larry ka heshay album la yiraahdo Saxitime. Waxaa ka buuxa sawiro haweeney qaawan ah. Waxayna isla markiiba u qaadatay in Larry uu xiriir qarsoodi ah leeyahay. Iyadoo xanaaqsan ayay si ula kac ah ugu dhacday jaranjaradii. Larry wuu dhacay, madaxiisuna wuxuu ku dhacay muraayada daaqada. Qayb muraayada ka mid ah ayaa si qoto dheer uga muday jirkiisa. Kooxda 113 ayaa timid, waxayna gooyeen qayb ka mid ah daaqada iyo muraayada si ay isbitaalka ugu qaadaan. Isla markaas Larry ayaa soo baraarugay. Jeril ayuu ugu yeeray, wuxuuna qirtay in haweeneyda qaawan ee sawirada ku jirta ay dhab ahaantii tahay Jeril lafteeda. Waa sawiro hore oo sanado badan ka hor la qaaday markii ugu horeysay ee ay gurigan soo degeen. Maxaa Larry, badbaadintani ma ahayn oo keliya mid jireed, balse waxay sidoo kale meesha ka saartay isfaham la'aantii weynayd ee guurkooda. Alara waa hooyada yar. Maalintan waxay ku jirtaa daaradeeda dambe iyadoo ka caawinaysa ilmaheeda Rosie inay socodka barato. Rosie weli aad bay u yar tahay, waxayna ku jirtaa marxaladii ay tallaabooyinkeedii ugu horeeyay qaadi lahayd. Alara si weyn ayay u sugaysay daqiiqadan. Waxay dhiirigelinaysaa Rosie iyadoo si taxadar leh u eegaysa, balse ilbiriqsigii xigay daaradii deganeyd waxay isu beddeshay goob musiibo. Mashiinka cawsjarka ayaa jebiyey xayndaabkii wuxuuna si toos ah ugu soo dhacay daarada Alara. Wax walba si degdeg ah ayay u dhaceen. Alara waqti ay kaga falceliso ma haysan. Waxaa la ogaaday in deriska cawska jarayay Richard Woods uu si lama filaan ah miyir beelay intii uu shaqaynayay. Markii uu suuxay, mashiinkii cawsjarku wuu ka baxay xakamayntii. Mashiinku wuu sii socday, Rosiena waxay ku xanibantay hoostiisa. Isla waqtigaas 911 waxay heshay digniin. Waxaa la ogaaday wadna istaag, laakiin mulkiilihii qalabka Richard Woods lama gaari karin. Kooxda dabdamiska ayaa si degdeg ah ugu dhaqaaqday cinwaanka Richard. Markii ay gaareen daarada dambe waxay arkeen muuqaal argagax leh. Xayndaabkii waa burburay, mashiinkii cawsjarkuna wuxuu ku dhegan yahay daarada. Richard Woods meel u dhow ayuu miir laan ugu dhacay. Alara labada gacmood ayay ku haysaa daboolka mashiinka iyadoo xanuun daran dareemaysa, balse diidaysa inay sii dayso. Rosie waxay ku xaniban tahay hoosta mashiinka. Kooxda 113 markiiba way kala qaybsantay. Nasiib wanaag, inkastoo Rosie ku xanibnayd hoosta, dhaawac culus ma gaarin. Warkaas ayaa Alara xoogaa dejiyey. Kooxdu si degdeg ah ayay u fahmeen dhibaatada dhabta ah inay tahay gacmaha Alara. Gacmaheedu kaliya kuma saarna daboolka mashiinka. Daboolku aad ayuu u kulul yahay, maqaarkeeduna wuu gubtay oo birta ayuu ku dhegay. Haddii si xoog ah looga jiido, dhaawacu aad ayuu uga sii dari doonaa. Dhakhtar ka tirsan kooxda ayaa doonaya inuu Alara siiyo dawo xanuun baabiisa, laakiin Alara waxay xasaasiyad ka qabtaa opioidska. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan la isticmaali karin daawooyinkii caadiga ahaa ee xoogga badnaa. Hawshii badbaadinta ayaa sii adkaatay. Isla markaas dhiig baxa lugteeda ka socda lama sii sugi karo. Haddii dhiigu sii baxo, xaaladeedu way ka sii dari kartaa. Waxay bilaabeen inay si tartiib ah gacmaheeda uga soocaan daboolka. Hawshu aad bay u xanuun badnayd maadaama aysan qaadan karin opioids. Waxay ku qasbanaatay inay ilkaheeda isku qabato oo ay u adkaysato. Way adkaysatay ilaa ugu dambeyn gacmaheeda laga soo furay daboolkii mashiinka. Dhammaadkii Alara waa la badbaadiyey. Rosie sidoo kale waa la soo saaray. Richard Woodsna waxaa loo qaaday daaweyn. Badbaadinta kadib Ryan ayaa Don weydiiyey sidee ayay u dhoola cadaynaysaa. Xanuunku waa inuu aad u daran yahay. Don ayaa ku jawaabay, weligaa ha yaraysan awoodda iyo rabitaanka hooyo. Elena waxay duubaysaa muuqaal xayeysiis ah oo ku saabsan sumadeeda qurxinta. Waxay martiqaaday saameeye caan ah oo la yiraahdo Christine Avaleri si ay daawadayaasha u tusaan sida loo sameeyo maaskaro wejiga lagu shubo. Intii la isku qasayay walxaha, Christine waxay khaladay habkii loo kala hormarin lahaa maadooyinka. 5 daqiiqo kadib maaskaradii Elena si dib la'aan ah ayay uga soo baxday wejigeeda, laakiin tii Christine si adag ayay ugu dhegtay wejigeeda. Malaastii qalashay waxay xanibtay daloolada sankeeda, sidaas darteed neefsashadu way ku adkaatay. Kooxda badbaadinta ee saldhigga 113 ayaa si degdeg ah goobta u timid. Ryan wuxuu aqoonsaday Elena sababtoo ah xaaskiisa Sam waa taageere weyn oo iyada ah. Waxay isku dayday inay dalool ka qodo maaskarada si Christine mar kale u neefsato. Christine way dhaqaaqaysay, sidaas darteed birtii qodaysay waxay xoqday sankeeda waxayna keentay dhiig bax. Waxay Elena ka codsatay inay dejiso Christine si ay maaskarada uga siibaan. Hawsha badbaadinta oo dhan si toos ah ayaa loogu baahinayay taageerayaasheeda. Si maaskarada looga saaro, samata bixiyaashu waxay ku qasbanaadeen inay ka jaraan sunayaasha Christine. Ugu dambeyn waxay ka fureen maaskaradii wejigeeda. Christine aad bay u faraxday markii ay aragtay tirada dadka daawanaya oo aad u korortay. Elena waxay isku duubtay Roxy waxayna uga mahadcelisay badbaadinta Christine. Tanner iyo saaxiibtiis Ilana Wilmers waxay u dabaaldegayaan 5 sano oo ay wada joogeen. Tanner wuxuu rabay inuu Ilana si lama filaan ah ugu soo bandhigo guur. Wuxuu farantiga meherka ku kariyay keeg, laakiin qorshahan jacaylka ahi si degdeg ah ayuu isu bedelay shil. Markii ay keega cunaysay, Ilana si kama ah ayay u liqday farantigii. Waxay bilowday qufac iyo neef qabatin xanuun badan. Farantigii ayaa cunaha kaga xanimay. Xaaladdu aad bay khatar u noqotay. Kooxda dabdamiska 113 ayaa si degdeg ah goobta ku timid. Markii ay arkeen waxa dhacay, waxay isla markiiba yiraahdeen in faranti lagu kariyo keeg aysan ahayn fikrad wanaagsan. Markii ay baareen, waxay ogaadeen inuusan ahayn faranti caadi ah. Waa faranti dheeman ah oo 4 carad ah. Waxaa intaas ka sii daran, dheemantii waxay hore ugu dhex gashay unugyada cunaha Ilana. Haddii si khaldan loola dhaqmo, waxay sababi kartaa dhiig bax iyo dhibaatooyin neefsasho oo aad uga sii daran. Tanner si buuxda ayuu argagaxay. Ryan ayaa isku dayay inuu dejiyo. Xubnaha kale ee kooxda waxay diiradda saareen daaweynta dhaawaca Ilana. Waxay si taxadar leh u gooyeen qayb ka mid ah cunaha si ay uga soo saaraan farantiga ku dheganaa. Geedi socodka oo dhan wuxuu ahaa mid adag isla markaana qosol iyo yaab leh, sababtoo ah dhacdadani waxay ahayd inay noqoto codsi guur oo macaan, balse waxay isu beddeshay xaalad degdeg ah. Ugu dambeyn, kooxda ayaa si guul leh uga saartay farantigii. Xaaladda Ilana sidoo kale waa la dejiyey. Tanner ayaa markan si dhab ah ugu soo bandhigay guur. Ilana way aqbashay codsigiisa. Qof kasta oo goobta joogay ayaa sacab ugu garaacay. Noh Iris waxay samaynaysaa tijaabada codka goob bandhig oo ku taal Nashville. Waxay ku xiran tahay
qalab u eg faras been abuur ah oo hawada sare laga soo laadlaadiyey. Isla markiiba Nooh waxay dareentay in wax khaldan yihiin. Waxay ogaatay in qalabku si yar u ruxmayo isla markaana hawada ay ku jirto ur aan caadi ahayn. Nooh waxay maamulaheeda Ashton u sheegtay inaysan ammaan ku dareemayn meesha ay joogto, laakiin Ashton wuxuu u qaatay in Nooh ay kaliya ka walwalsan tahay safarka bandhigyada, sidaas darteed wuxuu u sheegay in wax walba hagaagi doonaan. Kadib ilbiriqsiga xiga, Ashton si lama filaan ah ayuu dhulka ugu dhacaa. Jirkiisu wuxuu bilaabaa inuu gariiro, waxaana afkiisa kasoo baxaya xumbo. Isla markiiba xubnaha kale ee kooxda mid ayay u dhacaan. Tababarkii oo dhan wuxuu isu bedelaa fowda ilbiriqsiga gudahood. Nooh waxay ku xaniban tahay hawada sare halka dadka hoose ay miyir beelayaan. Waxa kaliya ay samayn karto waa inay qayliso oo 911 wacdo. Kooxda dabdamiska ee Firhoose 113 si degdeg ah ayay u yimaadaan. Don Hert ayaa hogaaminaya kooxda gudaha goobta. Waxay arkaan in dhammaan dadka dhulka yaal ay leeyihiin calaamado u eg suuxdin. Urta fiiqan ee hawada ku jirta ayaa xaaladda ka dhigaysa mid khatarsi ah. Kooxdu waxay ogaataa in goobtu ay u badan tahay inay ka buuxdo gaaska chloramine. Gaaskan sunta ah wuxuu ka yimaadaa marka bleach iyo ammonia la isku daro. Waxaa la ogaadaa in shaqaaluhu ay isku dayayeen inay nadiifiyaan haraadiga mashiinka qiiqa, balse ay si khaldan u adeegsadeen isku darka kiimikooyin khatar ah. Mashiinka qiiqa waxaa loogu talagalay inuu abuuro qiiq masrax ah, laakiin kadib nadiifin khaldan, goobtii oo dhan waxay isu beddeshay meel gaas sun ah ka buuxo. Nooh weli waxay ku xiran tahay qalabka faraska been abuurka ah ee hawada la suray. Waxay bilowday inay qufacdo, jirkeeduna wuu sii daciifayaa. Haddii ay halkaas ku miyir beesho, suunka ayaa qoorteeda eejin kara, taasoo xaaladda sunta u bedeli karta mid neef qabatin ah. Dabdamiyayaashu waa inay si degdeg ah hoos ugu soo dejiyaan. Kooxdu waxay bilaabaan inay raadiyaan badhanka xakamaynta, laakiin goobtu waa fowdo. Qalabku waa adag yahay, mana helaan badhanka saxda ah ee hoos u dejinta. Kadib markii uu nidaamka qalabka baaray, Blue wuxuu ogaadaa in la damiyo korontada nidaamka kor u qaadista ay siin karto Nooh fursad ay si ammaan ah ugu soo degto. Isla markiiba ayuu ka jaray korontada qalabka. Qalabkii faraska been abuurka ahaa si tartiib ah ayuu hoos u soo degayaa. Nooh ugu dambayn dhulka ayaa lagu soo celinayaa. Kooxdu isla markiiba waxay bilaabaan daaweynteeda. Jesse iyo Bo waxay isku diyaarinayaan inay fuliyaan qorshe waalan. Waxay rabaan inay iska dhigaan shil shaqo. Jesse wuxuu hore u jaray xadhiga bareega forkliftka. Qorshuhu waa fudud yahay. Jesse ayaa forkliftka ku kaxayn doona lugta Bo si Bo uu u helo magdhow shaqo. Laakiin arrimuhu si degdeg ah ayay u xumaadaan. Howard ayaa marka hore kaxeeya forkliftkaas. Maadaama xadhigii bareega la jaray, forkliftku ma istaagayo. Howard ma xakamayn karo. Forkliftku si khatar ah ayuu u socdaa. Ugu dambayn Eugene ayaa darbiga lagu cadaadiyaa. Xaalad aad u khatar ah ayaa dhacda. Markii Firhoose 113 ay yimaadaan, Don wuxuu aqoonsadaa Bo iyo Jesse. Labadan hore waxay ku lug lahaayeen qarxii doonta. Roxy waxay u degdegtaa inay hubiso Eugene. Dhanka kale, forkliftku weli wuu ku cadaadinayaa. Howard wuxuu isku dayaa inuu dib u celiyo, laakiin matoorku wuu istaagaa. Kooxdu si toos ah uma jiidi karaan. Faracyada forkliftku waxay ku jiraan meel aad u khatar ah. Nasiib wanaag, Eugene lama daloolin, balse weli wuu xaniban yahay. Kooxdu waxay go'aansadaan inay isticmaalaan gaari dabdami si ay u jiidaan forkliftka. Waxay ku xiraan gaadhiga forkliftka, kadibna si tartiib ah ayay u jiidaan. Dhaqdhaqaaqa oo dhan waa inuu noqdaa mid aad u degan, sababtoo ah hal qalad ayaa dhaawici kara Eugene. Ugu dambayn forkliftku waa laga saaraa, Eugenena waa la badbaadiyaa. Joe wuxuu wacaa 911 isagoo leh wuu dhacay oo keligii ma kici karo. Waa nin gurigiisa ku xiran oo aan marar badan dibadda u bixin. Aad buu u buuran yahay, wuxuuna sanado badan ku noolaa guriga. Markaan wuxuu ku dhacay miiskiisa qaxwada, miiskuna wuu jabaa, garabkiisana wuu dhaawacmaa. Wuxuu eegayaa sawirkii hore ee saaxiibtiis Joe wuxuuna dareemayaa murugo. Kooxdu waxay ogaadaan in dhibaatadu aysan ahayn keliya dhicitaanka. Joe wuxuu leeyahay dhaawac furan, waxaana yaab leh in dhiiggiisu u muuqdo mid cad. Waxay ogaadaan in sonkorta dhiiggiisu aad u sarreyso, jirkiisuna uu ku dhow yahay khatar weyn. Haddii xaaladdu sii xumaato, wuu wadna istaagi karaa ama istaroog ayuu qaadi karaa. Joe runtii wuxuu bilaabaa inuu muujiyo calaamada istaroog. Kooxda Firhoose 113 waxay si degdeg ah u dhaqaaqaan. Waxay siiyaan daawo, isla markaana waxay isku diyaariyaan inay dibadda u saaraan. Laakiin dhibaato cusub ayaa soo baxda. Joe aad buu u weyn yahay si uu uga baxo albaabka. Marka la isku dayo in la dhaqaajiyo, dhinacyadiisa waa la cadaadiyaa oo aad ayuu u xanuunsadaa. Haddii si xoog ah loo saaro, dhaawac kale ayuu heli karaa. Ryan iyo Blue waxay go'aansadaan inay gooyaan albaabka si ay u balaariyaan. Hadda Joe si ammaan ah ayaa loo saari karaa. Kooxda ugu dambayn Joe ayay dibadda u soo saaraan. Joe muddo sanado ah ma arag qoraxda. Marka iftiinka qoraxdu ku dhaco, xaaladiisa maskaxeed wax yar ayay isbedeshaa. Daawadu waxay bilaabataa inay shaqayso, xaaladuna waxay u muuqataa mid rajo leh. Badbaadintani ma aha oo keliya mid naftiisa badbaadisay, balse sidoo kale waxay ka saartay sanado gudoomiye.